Okay, su'aashan ku weydiinaa waxa weeyaan haddii Etoobiyaanka ay ka baxaan Soomaaliya ma laga yaabaa dawladda inay ayadana shaqooyinkeeda joojiso walaal taas waxaan ka leeyahay hal booliyuhu ma dhasho maaragtay nirig xalaala ma dhasho waxa waaye taariikhda Soomaaliya ma dhicin ama riyayba ila tahayba qarnigan aan ku jiro in nin Soomaaliyu inta amxaar soo kaxeeyo ummadiisa uu ku gumaadi doono ama ku gumaadi karaba ama bay dhici kartaba mar haddii nimankaas ay Soomaaliya ay gaarsiiyeen possibility ilaa heerkaas oo aan wali taariikhda Soomaaliya aan u dhicin oo ay ogolaadeen in ciyaalkoodii iyo ummadoodii la gumaado hortooda lagu gumaado da waxaan u maleynaa wax dambe oo laga sugayo ama rajo dambe oo dadka aan ka sugayno oo kale inaysan jirnaan u maleynayaa wali waa fiirinaynaa waa si kala qaybinaynaa kuwa hostage-ka lagu heesto oo kamid ah maaragta maamulka waxaan sameynaynaa rehabilitation inaan u furno oo aan taragarayno inaan balbeej cusub loo furo kuwii maaragtay beej loo furi karo kuwa laakiin aad u wasaqaysan ee aan beej loo furi karin waxaan taragaraynaa inaan wadanka inay iskaga baxaan oo maaragtay ii sheeg ay kulleetaba waxa dad badan qaxootiga waxaan u maleynaa meelaha qaxootiga inay ku biiri doonaan haddii la raali ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalka halkaas uga soo baxay